kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad oo xiliyadan oo kale aad la socotaan qodobada maanta aynu idin hayno waxa ugu waaweyn maxaad ka og tahay ujeedka rasmiga ee ka dambeeya mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo iyo halka laga soo abaabulay dowlad goboleedyada oo daaha ka rogay in mooshinka madaxweyne Farmaajo uu yahay mid lala soo daahay oo xilli hore loo baahnaa ra'iisul wasaare Khayre iyo Fahad Yaasiin oo dejiyay hab si fudud xilka looga qaado gudoomiye Mursal oo filla Soomaaliya ka hor yimid maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo uu xabsi guri ka dhigay gudoomiyaha baarlamaanka oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo xog iyo cadeymo dheeraad ayaanu idin haynaa ku-xigeenada gudoomiye Mursalna waxay soo saareen qodobo xayiraad ku ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad aynu idinkugu soo gudbino ku soo dhawow Dilaal abka Dilaal waxa uu ka caawinayaa inaad wax iska iibiso ama aad iibsato adigoo gurigaaga jooga si fudud isaga iibi geli sawirka shayga aad iibinayso geli faahfaahinta shayga aad iibsanayso ku dhufo post la hadal iibsadaha ama iibiyaha adigoo isticmaalaya qaybta wada hadalka lana wadaag sawirro iyo locationka ka dejiso abka Dilaal Google Play Store mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa 10ka bisha 12aad sanada 2018 hadaynu ku bilaawno barnaamijka saacadahaynu soo dhaafnay waxa si weyn loo hadal hayay mooshin laga keenay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoomiyaha golaha shacabka u gudbiyay mooshin ka dhana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo walow si rasmi ah aan loo soo bandhigin xildhibaanada mooshinkan saxiixay mooshinka ayaa socday labadii habeen ee la soo dhaafay waxaana xiisadda ay sii adkaatay markii kulamo la isku fahmi waayay ay ka dhaceen filla Soomaaliya maadaama shuruudo adag la is hordhigay warar aan helayno waxa ay sheegayaan in mooshinkan ay isku bahaysteen xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana fariin ayay u noqonaysaa madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa qabtay mooshinka kadib markii uu waayay ujeedo isku soo dhawaasho wada shaqeyn dhaxmartay isaga ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana arinta ugu weyn ee la isku hayay noqotay arinta Koonfur Galbeed iyadoo xildhibaanada ugu badan ee saxiixay mooshinka looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo ay ka soo jeedaan deegaanada Koonfur Galbeed xildhibaanada qaarkood ayaa sheegay in mooshinka ay u gudbiyeen gudoomiye Mursal ay ku qalqal gelinayaan oo kaliya madaxweyne Farmaajo oo muddo 2 sano aan laga keenin wax mooshina way adag tahay in la helo 2 meelood 3 meel xildhibaano ka tirsan labada aqal sidaas darteed madaxweynaha si sahlan loogama qaadi karo xilka balse waa fariin aynu u direyno ayuu yiri xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo la hadlay warqaad mooshinkan ayaa ka dhigan awood muujinta gudoomiyaha baarlamaanka waxaana arinta ugu badan ee la isku hayay tahay doorashada Koonfur Galbeed oo musharaxiinta qaarkood ay doonayso dawladda Soomaaliya tartanka inay ka reebto xildhibaanayaal u dhoon daleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in mooshinka xilligan laga keenay madaxweyne Farmaajo uu sababi karo arrin muddood arinta koobaad waxa lagu sheegay inay joogsadaan dhammaan shaqada hay'adaha kala duwan ee dawladda gaar ahaan golaha shacabka oo howlo badan hor yaalaan in dhaqaale badan ay ku bixiyaan labada dhinac xalinta iyo taageero helidda mooshinka dhaqaalahaas oo ah mid ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed in qalqal amni oo ku soo kordho magaalada Muqdisho iyadoo laga faa'iideysanayo buuqa siyaasadeed sida marar hore dhacday xildhibaanada la shaaciyay in mooshinka saxiixeen ayaa durba soo hadlay sheegana inaysan shaqo ku lahayn magacyadoodana laga been abuuray talaabadan ayaa loo arkaa jawaab celinta filla Soomaaliya ee duulaanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ku qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda وهاجاك داود يال قيبي وجوه الرئي برامج كارمها سياسة ورقات أيانو كوجد جرنا قضوا بحث لا ينص صديق كم يجين معمول قبل جدا وده كرجين موشن كحل عن لقى كريم الحوين فرماج ويهمل للا صوت هاي يورد الوزارة غيرية فهد ياسين والدجي
hab si fudud xilka looga qaado gudoomiye Mursal oo ka soo horjeeda filla Soomaaliya balse markan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay in madaxweynaha Soomaaliya uu amar ku bixiyay xabsi guri in laga dhigo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo madaxweynaha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in saaki laga soo celiyay guriga gudoomiyaha baarlamaanka ayaa tilmaamay in ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada saacad xildhibaanada ay ugu sheegeen inaysan u gudbi karin gudoomiyaha baarlamaanka amarkan uu ka soo baxay xafiiska madaxweynaha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida weyn u mucaarsan dawladda uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid meel ka dhac ku ah dawladda Soomaaliya maadaama mas'uulkii labaad ee ugu sareeyay dalka uu xiray madaxweynaha jamhuuriyadda sida ay warka u dhigeen xildhibaanadan oo ka hadlayay madal lagu soo dhaweynaya siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa weerar culus oo afka sidoo kale waxay ku qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha baarlamaanka qabtay mooshinkii aan ka keenay madaxweynaha maanta waa maxbuus waa ka xunnahay inaan naadino oo sheegno laakiin madaxweyne xirayo gudoomiye baarlamaan weerarayo oo ka xirayo albaabada xildhibaanada ay soo ziyaaran karin wax lala yaabo fariinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyay madaxtooyada oo ah gurigii uu gudoomiyaha baarlamaanka deganaa haddaba Soomaaliya ogaada xanfareesha waaye wixii soo baxay ku dambeysana nala socda haddaynu nahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintiisa in dalkani uu yahay dal xor ah dadka Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin in ra'yiga siyaasadeed ay qabaan ay u cabiraan sida ay doonayaan bishaadii kale sanadkii hore ayaan daro aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu weeraray madaxda iyo siyaasiyiinta xisbiga Wadajir maalintaana waan cambaaraynay haddana waxaanu leenahay maanta waxay daliil u tahay inaanan cidna la caburin karin qofna ra'yigiisa aanan lagu beegsan karin dadka Soomaaliyeedna aanay ogolaan doonin mudane Cabdiraxmaan soo dhawow dadka Soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan oo ay kaaga fadhiyaan inaad ugu abaalguddo taageeradii iyo garab istaagii ay kugu sameeyeen waagii hore qofkii dalka lagu cabiriyo xagee buu aadi jiray wuxuu aadi jiray wadamada dariska Itoobiya hadda madaxweynihii baa Itoobiya aaday madaxweynihii ayaa Itoobiya naga aaday inta dadkiisii ka carooday nancin waayay wuxuu sheegi waayay ayuu yiri ciidamada Eritrea iyo Itoobiya dalka ay qabanayaan heshiisyo noocaas dalkaana ciidan hadii lagu qabsan karo 40,000 baa Unison 92 iyo 93 timid 50,000 ku dhawaad baa Itoobiyaan keeneen halkan ayuu kaarayaashoodii wada kuwa ka horeeyo ciidamada way jiraan laakiin Soomaali bay ahaayeen ciidamo ajnabi ah ninkii dadkiisa u soo wata ama kuwa dalkiisa yiraahda dadka ii caburiya ninkaas mugdi buu gudayaa waa nin khabarmooga wuxuu u baahan yahay in far waaweyn wax loogu qoro oo la yiraahdo dadna lama caburin karo qorina waxba tari maye waxaad u soo baxdaa waxa isku difaacdaa madaxweynuhu waa inuu isku difaaca sidii akhyaarta hadda iga horeysay yiraahdeen xildhibaanada waa inuu isku difaaca sharciga hortiisa hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame maanta dib u soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa weerar culus oo dhanka afka waxa uu ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in habeen madow si bareera gurigiisa loo weeraray sidoo kalena dhammaan la laayay askartii waardiyaha u ahayd isagoo soo qaatay tusaalooyin muujinaya dhaliilaha uu u jeedinayo madaxweyne Farmaajo maanta waxaan ku soo noqday Muqdisho ayagoo madaxweynaha wadaysan yahay waxaan leeyahay madaxweynaha adiga ay soo weeraray oo amar ku bixiyay guriga inaad ku soo weerarto wiilashii askarta ah iga laayay kabaha ku aasay maxkamada isla tagnay sharcigan ku kala baxnay waxaan rabaa madaxweyne fariinta koowaad diray waxay tahay adiga iyo xildhibaanada waa eedeysantay sharciga ku kala baxa
waa fariinta koowaad. fariinta labaad waxaan rabaa inaan reer muqdisho u jiro maanta waxaan rabnaa reer muqdisho haddaanahay inaan idhaahno waa markii ugu dambaysay soo ayagu ma dhihi jiro waa markii ugu horraysay maanta waxaan leenahay waa markii ugu dambaysay oo jidadkana la ka xirto waa markii ugu dambaysay oo cashuurteena la dhaco markii ugu dambaysay oo qoray oo taliyo waxaan arkaa xildhibaanadii oo caburin ka sheeganaya waxa la isku cabirinaya saxa inta laga sheegay taangiga amisom la iskuma caburi karo kii Itoobiya la isku caburi waayo marka taasaan leenahay waxaan leenahay oo xildhibaanada ku taageersanahay sharafta leh mooshinka ay keeneen madaxweyne Farmaajo wax Soomaalnimo waa ka weynay qalbiga waxa uu dhiibay Soomaalnimo ma ahayn maanta waa ka jigjiga lagu soo dhaweeyaa soo sharaf leh oo dadkiisii dhex jooga way soo weeray ilmihii askarta ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu laayay wax Soomaalnimo ma aha walaalaha Djibouti ayuu ka doorbiday inuu gees geliyo oo la dagaalamo takoor Soomaalnimo ma aragno wuxuu leeyahay Soomaaliland mucaawanadaha laga jaro Soomaalnimo ma aragno wax Soomaalinimo madaxweynaha waa ka weynay markii horena wuxuu noo sheegay inuu Soomaali u socdo laakiin anaga waxa leenahay madaxweyne wax Soomaali ah waa ka weynay hadday tahay maamul goboleed hadday tahay Somaliland hadday tahay Djibouti hadday tahay Ogaden iyo Soomaali galbeed meel aad Soomaali ku matasho waa la leeyahay madaxweyne saas daraadeed waxaan taageersanahay hadana xisbiga wadajir mooshinka ay soo jeediyeen xildhibaanada ayaan taageersanahay وحقاق داوديال ولي ورقات اياد نقل سعطان قضو بحيسة بدن ايا inoo harsan dowlad goboleedyada ayaa cadeeyay mowqifkooda ku aadan mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo iyagoo waliba bogaadiyay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanka mooshinka ka dhanka madaxweyne Farmaajo oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye Maxamed Mursal ay u gudbiyeen qoraal ay soo saareen golaha iskaashiga ee ku saabsan arinta mooshinka ayaa u qornaa sidan golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waxay walaac ka muujinayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka oo sii cakirmaysa kana soo daraysa bilihii la soo dhaafay goluhu wuxuu si taxadar leh uga dooday qodobada dastuuriga ah ee lagu eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda goluhu wuxuu soo dhaweynayaa go'aanka dastuuriga ah ee baarlamaanka Soomaaliyeed ay uga gilgisheen siyaasadda guracan ee uu hormuudka ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya taas oo sababtay qalqal siyaasadeed ee ku aadan dowlad goboleedyada curdanka ah iyo kuwa kaleba waxa si bareer iyo ulaka xogaanka dalku oo uga leexday hanaankii la dagaalanka argagixisada taas oo sababtay in shabaab iyo daacish shacabka Soomaaliyeed si toos ah u bartilmaameedsadaan sidoo kalena ganacsatada lacaga baada ay ka qaataan haddii ay diidaan toogasho toos ay u geystaan goluhu wuxuu ugu baaqayaa baarlamaanka Soomaaliyeed iyo aqalka sare oo wakiilka dowlad goboleedyada inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah iyagoo maraya sifo waafaqsan dastuurka dalka goluhu wuxuu ku baaqayaa in danta gaarka laga hormariyo ilaalinta danta guud iyadoo si toos ah loo abaarayo xaluhilida siyaasadda murugsan iyo hoggaanka wiicday ee loo hanweynaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada qaybihii dambe ee barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad ayaynu isla soo gaarnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo taliye ku-xigeenka hay'adda NISA Fahad Yaasiin ayaa dejiyay hab si fudud xilka looga tuuro gudoomiye Mursal oo ka hor yimid filla Soomaaliya xog gaar ah oo ay heshay warqaad waxay tilmaamaysaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo agaasime ku-xigeenka hay'adda NISA Fahad Yaasiin ay bilaabeen kulamo gaar ah inay la qaataan qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya gaar ahaan kuwa mooshinka ka soo gudbiyay madaxweyne Farmaajo waxaana lagu wargeliyay inay xilka ka tuuraan iyadoo ballanqaadyo waaweyn qaarkood loo sameeyay Khayre oo ka carooday ficilada uu ku kacay gudoomiye Mursal ayaa doonaya in la marsiyo wadada oo maray gudoomiyihii ka horeeyay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari Fahad Yaasiin Xaaji ayaa sameeyay xafiis u gaar ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne Farmaajo kuwaas oo la rabo in heshiisyo hoosal ay la gasho madaxtooyada Soomaaliya si mooshinkan cusub meesha looga saaro sidoo kalena loo weeciyo dhanka gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaare Khayre ayaa xildhibaanada uu hormuudka kaga dhigay qorshahan u ballan qaaday xilal iyo lacag badan sida aynu ku helnay xogta qaar ka mid ah xildhibaanada qaybta ka ah mooshinka madaxweyne Farmaajo
ayaa durba sheegay in laga been abuuray magacyadooda isla markaana aysan shaqo ku lahayn mooshinka laga gudbiyay madaxweynaha. loolan siyaasadeed oo aad u adag ayaa ka dhex bilowday madaxda ugu sarreysa dalka, waxaana dadka odorosa siyaasadda ay sheegayaan in xiisadan mas-uul uu ku bixi doono. guud ahaan daawadayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka arrimaha siyaasadda warqaad. intaynu mid lamida berito ku kulmayna haddii uu alla qadaro. nabadgelyo. kusoo dhawow warqaad press. haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like saar siina share garee. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar si aad u hesho muuqaallo cusub. fikirkaadana noogu soo gudbi qaybta commentiga. aad baad u mahadsantahay.